الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وبعد والدين تي ardada qaran jabinaysa xildhibaanada golaha wakiilada madaxda ururada xisbiyada qaranka gudoomiyaha xisbiga wadani maamulka iyo macallimiinta ardada qaran jabinaysa saxaafadda iyo marti sharafta kale qiimaha badan ee madasha ku sugan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waa kelmad hambalyaa oo ku faraxsannahay inaanu nimanno annagoo golay wakiilada ka soconno 3 xildhibaan ku joognaa sokeeye iyo xildhibaan barkad hurre iyo aniga xisbiyadii guddoomiyeyaashoodii ururadiina ay joogaan dowladdii iyo xukuumaddiina ay joogto wasiirkii ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo agaasimayaashiina joogaan runtii dhakhaatiirtii bartan ka hadashay baa dardaarankii ardayda aada u jeedisay waxaan ku faraxsanahay labadii dhakhtar ee bartan ka hadlayay doorka nolosha ee dhallinyarada qaran jabinaysa iyo kaalinta caafimaad iyo mas-uuliyadday qaadeen inay ka duwan tahay mas-uuliyadaha kale bay si fiican uga sheekeeyeen waanan uga mahadnaqayaa runtii fariintii ardayda la odhan lahaa gruubka cusbitaallada ka socday saddexdii mas-uule bartan ka hadlay baa sheegay waxaa la qabaa inay jaamacadda shifa tahay jaamacad runtii midhaheedu ay manfac badan ku reebeen guud ahaan somalilan sidii dhakhtarku xaggan ka sheegayey gobol kastoo tagtaba qof neerasa ama midwayfary ama farmacologyga bartay oo jaamacadda shifa ka soo baxay baad arkaysaa mas-uuliyaddu kolleyba diiniyan bay idin faranta qoladiina caafimaadka bartay oo sheekh sokeeya ka hadli doona waxaan isleeyahay wax ugu qiimo badan oo nafta aadamaha oo ilaahay dadka ugu deeqay baa lagu idinku aaminay badbaadadeeda waxay idinka baahan tahay ammaano fara badan waxay idinka baahan tahay daacad waxay idinka baahan tahay dadaal waxay idinka baahan tahay inaad si weyn dalka iyo dadkaba ugu fikirtaan waxay idinka baahan tahay badbaadada bulshada inaad aada uga shaqaysaan waana fadli ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idin siiyey laydinkuna itixaamay labada fiile mas-uuliyaddu way saaran tahay markay dadku aqoonta baranayaan waa qofka looyarkaa iyo qofka dhakhtarkaa labadaasiba waxay badbaadiyaan qof nolosha qofka looyarkiina wuxuu badbaadiyaa hadduu maxkamad joogo qof dulmano ah oo dil aan u geysan lagu eedeynayo qofka dhakhtarkiina wuxuu badbaadiyaa ilaahay baa gacantii naftu gacantiisa ku jirtaa isagun baa qaaday isagun baana abuuree asbaabtu dhakhtarkuna la yimaadaa qofkaasi uu kaga badbaadaya geerida markaa mas-uuliyad ka weyn runtii ta dadka saaran baa idinkeeda saaran jaamacadda iyadoo maxada ayaa runtii xasan shifa waa ka xaggaa fadhiya iyo cali malaa imika 13 sanaa ka soo wareegtay baan u malaynayaa iyo mooye 14 sano waxay tahay shifa college baa markaa la odhan jiray aniga xusuus gaara bay igu leedahay cali iyo shifa xasan shifaan u keenay inamo aan doonaya inay farmacologyga bartaan markaa habeen 7 habeennimo iyadoo ah oon u keenay oo la diiwaan geliyey oon doonaya markaa inay sidan oo kale u qalan jabiyaan oo dhakhaatiir noqdaan oo iga aqbaleen ayaa markii aan ka soo daadegay aan isiri soo baasgaree dariiqa oo wajahadda hore gaadhigu yaallo u tag ayaa gaadhi jiiray 2 bilood baan ku jiray cusbitaalka Hargeysa nabaradii ay iga tageen oo kuwa gacmahayga ku yaala marka waxaan xasuusanayaa runtii qiimaha jaamacaddani maanta inay jaamacad noqoto agteeda ay ku leedahay marka iyadoo college baan ka arkayay runtii inay wax soo saar iyo midho wanaagsan bulshada ku leedahay ilaahayna subxaana wa tacaala 2 bilood kadib waa bogsiiyey sababtuna waxay ahayd in dadku aqoonta gaar ahaan caafimaadka ay bartaan maanta 12 sano kadib iyadoo difcaddii 12 qalan jabinayso anoo caafimaad qaba oo nolol ku soo gaadhay xaaladdeedu habeenkaa khatar gashay oo 2 habeen kooma ku jiray inaan arko midhihii haddana inay soo go-een oo weliba qaranka somalilan ay u soo go-een sharaf bay runtii iyo farxad bay tahay falilahi alxamdu walmanna ilaahay baynu ku mahadinaynaa aad iyo aad baad mar labaad iyo mar saddexaad buu mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xildhibaan barkad jaamac